saacado kooban oo keliya ayaa ka hadhay dharaartii codbixinta doorashada madaxtinimada Somaliland oo idil ahaanba dalka ka qabsoomi doonta maalinta berri oo Isniina kuna taariikhaysan 13 bisha November. Xisbiga wadani oo xilligan ah midka sida weyn loo wada saadaalinayo inuu ku guuleysto doorashada codaynteedii berri loo dareerayo ayaa waxa murashaxiisa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro maanta ku sugan yahay xarunta xisbiga wadani boqolaalka kun ee codbixiyayaasha reer Somaliland muddada dhowrka bilooda khadka taleefanka codkooda ku weydiisanayay. Cirro toos ayuu khadka taleefanka uga la hadlayaa codbixiyayaasha reer Somaliland saacadaha ka hadhay doorashada. Halkani waa xarunta call centerka loogu yeedho murashax Cirro kaliya dadka ma wacayo waxa iyaguna khadadka kala duwan dadweynaha ka wacaya codkoodana ka weydiisanaya hawlwadeennada sida khaaska ah ugu tababaran shaqada ay halkan ku hayaan. waa kan murashaxa oo muwaadiniinta codkooda weydiisanaya. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام يا مواطنين. وأنا هاي مشرح مدحويني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو. وهكون سو قراعي أنا قراعي دمان مواطنين تا إن عود كاجا بريتو بشدة وانتهاي هذه شيء. قلت إسمعنا الله هين عودي لك تبي أن عطي كسيو محابي قبل دونتا. إن شاء الله مواطنين تدمان وحنا بالله إن نوصل ما إنه أديك أساسية أي كم تاي وحبرشته عافماتك بيها الليلك يودويك يدمان هرمرك كابي يدوش مواطنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا أنت عبير التاسكات هاي بعد وحكون بالقاضي أن عطي كسيو إن شاء الله. أنا ويقضى عض أنا عدك إن شاء الله ونصين دوتا بريتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha murashaxu khadka taleefanka kula hadlayo qaarkood u qaadan waa ay la tahay kuwana kolka ay aqoonsadaan inuu yahay Dr. Cirro qofka la hadlaya shuruudo mustaqbalka ku aadan ayay ku xidhayaan. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. waxaa kula hadlaya muwaadin murashax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi Cirro. waxaan ku soo garaacay dhammaan muwaadiniinta Somaliland inaan garaaco oo weydiisto codkooda berrito insha Allah marka codkaaga marti kaaga ahay ma siisa haddii aan Cabdiraxmaan Cirro tahay oo aad u sheegaysid iyo ku siiyay telefoonkayga telefoonka waqtiga nasiib waxa muwaadiniinta oo dhan gargaraacayay marka adigu kuma garanayo laakiin telefoonada waa gargaraacayay dhammaan telefoonadii aan helay صح سيدي عنده رفعي باهي وعسكري gaye كويس كيغنا هدي بقول كيبا ciidamada mushaharkooda 200 ku kordhiso ayuu xiriir ku cadeynaayo كويس كيغا oo dhawaan ku cadeynayna ما شاء الله 200 كنت نoo kordhinayna gurina waa u dhisaynaa hadii ilaahay ka dhigo ciidanka hadii ilaahay ka dhigo aniga كويس كيغا ku cadeynayna mahadsan dhanka kale waxa taasi barbar socota qorshaha xaruntan call centerka loogu yeedho oo xisbiga wadani muddo 6 bilood dadka codkooda ka weydiisanayay in murashaxu ku talagalkii ahaa in lagu beegsado muwaadiniin ka badan 200 kun oo ruux oo codbixiyayaal ah intii codkooda u ogolaatay inay Cirro siiyaan inuu toos murashaxu ugu mahad celiyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شعبك Somaliland دمانتي سلامية أودي يرجلوه بريتين عضيان doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland 13 November xarunta telefoon wicida xisbiga wadani waxay ku guuleysatay ilaa hadda inay gaadho oo la hadasho muwaadiniin ku dhow 200 kun waxaan u mahadnaqayaa dhammaan muwaadiniinta taageertay inay codka ay siiyaan anigoo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi inta ka cudur daaratayna waan u mahadnaqayaa inta aan la gaadhin waan u mahadnaqayaa laakiin dhammaan waxaan ugu baaqayaa inaanay berrito ka habsaamin inay codkooda dhiibtaan kuliyadana iyo goobaha lagu talagalay inay goor hore yimaadaan waxaan idin rajaynayaa guul doorasho wanaagsan oo nabad inoogu dhacda aad iyo aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. howlaha doorashadu habsami ayay ilaa iyo haatan u socdaan qorshe kasta iyo ku talagalkiisuna xisbiga rajada shacabka
wuxuu ugu socdaa sidii loogu talagalay rajadiisa guushuna waxay maraysaa halkii ugu wanaagsanayd kolka laga yimaado qadarka qaa'ibka ah iyo guusha kursiga oo gacanta ilaahay iyaduna ku jirta cabdirasaaq teera magaalada Hargeysa.